boqorka gurigiisii waxaa yimid jamaaco niman jamaaco socdo oo min bani cabsin qolada reer bani cabsin la yiraahdo kamid ah fiihim waxaa ku jira jamaacadaas rajulun dariir nin indhala oo la hagayo ayaa la socdo fasaalahu الوليد baa markii wuxuu weydiiyay can sababi kafi basarihi ninkii indhaha la aayay jamaacada la socdo su'aalo wuxuu yiri sababti aad ku indha beeshay maxay ahayd faqala wuxuu yiri ya amir almu'minin lam yakun musa hayn fi bani cabs wa qoladii uu ka dhashay waay qoyska aan ka dhasho reer bani cabs la yiraahdo dhaxdooda musa aan rajulun oo faru minni aniga iga badan maalan xaga maalka wala aktharu ahlan iyo waladan nin reer bani cabsiya oo maal iyo dad igu gaaray ma jirin ninka ugu taajirsan oo ugu ilmo badan ugu reer badan baan ahayo nin qabiil idil iska degan baan ahaa fanazaltu waan dagay maca maali iyo waciyali maalkayga iyo caruurtaydi ayaa waxaan la dagay buuri fi badni waadi dhaxdiis oo min manaazil qowmi qoomkayga meelihii ay dagayeen degaankoodii waqtiga jiilaalka moogtay waadiyaasha dhexdooda meelaha dooxooyinka la iska dagaawe waliba yani waqtiga yani ugu dambeysay kala dambeedka markii la gaaray waqtiga roobku soo dhow yahay waa laga guuraa reemigu saas yaqaan hal laga yaabo caawa in roob mira unjug intuu iska yiraahdo waadigu ku qaado waa halis sooma marka laakiin waqtiga jiilaalka la joogo meelahaas la dagaayo waa meel qabow oo yani harkaas la dagayaa waadi dhexdii baa iska dagay fadarqana waxa nagu soo guuray ayadoo xilliga maroob aan la sugayno waqti waaldi aan la islahayn darqana waxa nagu soo guuray saylun daad lam nara an arag midlo soo kala qad wali roob aan soo hilaacimbo oo meelu ka daay baan la arkayno la sugayninbo daad uu socdo un baa habeen markii soo galay yani waadigii oo labada dhinac wado hal mar un baa soo maray فذهب السيل وحول تغي دادكي بما كان لي وحي يسغنادي او من مال iyo واهل iyo waladina wax alla waxaan lahaay oo dhan bihi ba qaaday ilmihi xoolihi xaasaskiisi uu lahaa kulli wala tagay ولم يترك لي إجمتين غير بعير واحد وطفل صغير وحديث الولاية ولادتي wuxuu iiga tagay xoolo waxaan lahaana hal ritiah dad waxaan lahaana canug yaro ugu yaraa ilmaha oo bari dhow dhashay oo maalmo u dhalnaa bas labadaas ay ugu soo haray kii un bulsho markuu soo baraarugayo canug in buu la boodasho naftiisu la baxay xoolihiina ritiga aan ba ka baxsan wixii kale oo dhan dad iyo duuyo bihi ba qaaday wa kaana al-ba'iru waliba wuxuu ahaaday buu ritiga ii soo haray midkan ii soo haray wuxuu ahaaday sacban buu ahaaday mid layli ah waliba awrti hayinka haydo wanaagsan ma midkii isoo haray mid layli oo bar dhow la soo qabtay oo hore iyo gadaal midna aan ogolayn weeyaba fanada minni wiga carray aad gabati markaan iri ayuu iga carray fataraktu sabiya anu gibaan ka tagay intaan dhigtay calal ardi dhulka intaan seexiyaan ka tagay wala xiqtu bil ba'ir tigba ila soo qabatay oo horta intuu soo qabto hogaamiye inuu canuguna xumbaarto raba mawda marka canugiba intaan seexiyay dhulka dhigay ayaan ratiga ka daba tagay فلم أجاوز مكاني ماشي عن عنق دقي ما أنا بقدبين بقى ساو دقاقي فالتفت وان سوفيري فإذا رأسه عنق مدحيس في فم الذئب بروا أفكيس كسي جيدا عنق أف مدحيس وهو يأكله وانعون ياو فبادرت إليه وانسو دقدقي غير أني أنه لم أستطيع ما أنا أودني إن قاده إذ كان قد أتى عليه واعنب والله غير إبر أن كذا ورد إلى الدكسي خلاص فلحقت بالبعير وحكى لما هي مركز رتجي بان مركز كذا أذيب وأنا غضيب فلحقت بالبعير رتجي بان هليلو كذا بتجي فلما دنوت مركان أدوا هذا رماني برجله خراتي وسك قضير خراتي أمو يدبيون على وجهه إلى ضفتي رمية بفشو حطمت جبيني وجهنا ودم بدمسي وذهبت بصري أرج الدم بعد وجسي وجهنا ودم بسكت دمي بوليه عندي هذا نواتك أرج ملك وهو أركها يوم الدم وهكذا صدق يا وجدت نفسي نفتي رهلي بوري قد غدوت إن أنا هذه في ليلة واحدة هل هبينا من غير أهل ولا ولد ولا مال ولا بصر هل هبينا صدق نقول ضد الآن iyo dunya la'aan iyo indha la'aan iyo hal habeen igu dhacday
هكا المصيبة امتحانك الولد ده ندي وخطر دق دق بوك وقول عيا